Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube channelkayga. Maanta waxaa idiin wadaa Bilaal Bulshaawi ama madaxweynaha TikTok in lagu xiray magaalada Hargeysa iyo sababta loo xiray. Bilaal Bulshaawi markuu Hargeysa tagay wuxuu tagay maqaaxiyadaha ama hoteelada Hargeysa ka tirsan, kadibna waxaa loo sameeyay shaah calankiisa Soomaaliya uu ku xidhan yahay ama uu ku sawiran yahay. After few hours waxaa dhacday asagoo ka hadlaya fiidiyogiisa TikTok uu soo dhigay inuu Hargeysa joogo oo maqaaxiyadaha Hargeysa ama hoteelada Hargeysa hotel kamid uu joogo, ayuu fiidiyogiisa soo duubay uuna ka soo duubay shaahi loo keenay oo taasoo shaahaas oo calanka Soomaaliya uu ku sawiran yahay saas picture-ka ama sawirka ama fiidiyowga uga jeedaan. Kadib waxaa dhacday subaxdii saaka markay ahayd in booliiska Hargeysa ay xabsiga u taxaabaan, taas ayuuna ku muteystay in xabsiga la geeyo. ma isweydiisan waayo maadaama ay Somaliland ama Hargeysa ayna wali dadka xoriyadooda ayna ku dhaqmi karin iyo rabitaankooda iyo jaceylkooda inay afka qofka la qabto ama aan la dhihin bahalkii waa calankiisa lama soo bixi karo. Balse waxa isweydiinta mudan Bilaal Bulshaawi maadaama uu Soomaaliya u ka imaaday calankiisa Soomaaligana shaaha looga soo dhigay, dadka ka soo dhigay talo ma la xiray maqaaxidoodii ma la afgambiyay ama ma la xiray maadaama mase Bilaal Bulshaawi oo kaliya ayaa farta lagu fiiqaya. Haddaba bulshada Soomaaliyeed wixii ka soo gudboonaada ama ka soo baxo xiritaanka Bilaal Bulshaawi waxaa idinkala soo socodsiineynaa channelkeena qaybtaan ku leenahay YouTube-ka oo kana oo Saacadiyo يعني وانا نصيب درو qof bilaanan ama dhalinyaro ama wiil yar oo dhalinyaro oo muujinaya rabitaankiisa wadankiisa Somaliland hadee wadan waaya la dhahay Soomaaliyana wadan waaya hadii isxushmayso istixgaliso waa la gartay, laakiin rabitaankaaga ama wadankayga adoo joog kama hadli kartid. taas waa juujub iyo gumeysi cad. gumeysina waa laga soo tagay maanta wadan ama adduun la isku meysto waa yar yihiin. haddaba ma ku faraxsan tahay in ay taas kugu dhacdo ama wiil Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed oo dhanna magac ku dhaxlay Bilaal Bulshaawi horena siyaasad Soomaaliyeed ugu muujirin Soomaaliyeedna ugu muujirin wuxuu ahaa yar ku caan baxay filimada yaryarka ee shortka ah oo TikTok lagu soo gudbiyo, taas ayna sababtay inuu gaaro heer magac uu yeesho, kadibna uu rabay waqti ama jawi uu la soo qaato dhalinyarada ama dadka jecel madadaalada oo ku nool magaalada Hargeysa uu waqti badan oo soo geliyo waqti la qaato oo la farxo. balse abaalkiisa uu noqday maadaama aad koob shaaha calanka Soomaaliya aad ku sawiratay adiguna xabsi ayaad muteysanaysaa. marka taasna wax la mudan yahay ama wax wanaagsan ma aha. marka haddaba hadii aad ra'yigaas ku qabtid calankaaga meel walba kuma soo bandhigi kartid. Bilaal Bulshaawi horay ma aqaan fiidiyowgan inuu arkay gabar kale Soomaaliyeed baa jirta oo sariirta iyada ku seexanaysay ee calanka Soomaaliya ay saaratay kadibna xabsi ku muteysatay. walow adigoo intaas fiidiyow soo hordhigtay oo shaahna calankaaga kasoo karsamaysatay. marka adoon waxyaalo badan iska jirin ama waxyaalo badan ka digtoonaan ayaad waxa la iska soo dubta, laakiin way dhacdaa. laakiin abaalkaagu ma ahayn in ay xabsi had muteysatid. dadka ku soo sameeyay adigu isku dambi baa tihiin hadii dambi ay tahay taas. marka adiguna kaliya in farta lagu soo fiiqo ma ahayn.